ma baratay HTML CSS iyo JavaScript ma dareemaysaa inay weli web development-ga kaga dhiman yihiin dabcan haa laga yaabay inaad xaqiiqsatay in saddexdaa basics-ka ahi aysan kugu filnayn inaad web developer dhammaystiran ku noqotid shaqana ku heli karto waxaa xaqiiqo ah in web development yahay fiil markasta aad loogu baahan yahay caalamka muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa qaybaha ugu muhiimsan web development-ga ay tahay inaad waqti geliso kusoo dhawaad dhalinyaro muuqaalkeena maanta in badan oo ka mid ah dhalintu web development-ga ka bilaabaan saddexdan ugu caansan ee HTML CSS iyo JavaScript waana option aad fiican oo faa'iido leh balse marka timaado inaad noqotid web developer dhammaystiran oo shaqo ku heli kara xirfadan waxaad xaqiiqsanaysaa in saddexdan oo keliya aysan kugu filnayn kombaniyaduna waxay u baahan yihiin developers awood u leh inuu project dhammaystiran diyaarin karo bilow ilaa dhammaad haddaba aynu isla eegno qaybaha kale ee ka dhigi kara web development dhammaystiran aynu ka bilowno frameworkska iyo librarieska khaasatan kuwa aad ku qurxinay xirfadaada front-endiga tusaale ahaan React waa mid ka mid ah kuwa ay muhiimka tahay inaad ogaataan frameworkyadu waxay aad kugu sahlayeen inaad waqti kooban ku dhisi karto websites dynamic iyo responsive ah tusaale ahaan waxaa wataan Storefront halkan waxaa nagu qoran HTML halkayna waa CSS iyo JavaScript ayaa inoogu xiga markaynu ran garayno sidan ayuu noogu soo baxayaa bal haddaba aynu ku darno React si aan u aragno qaabka isku beddelayaan waxaa sidoo kale jira frameworks la mid ah React waxaana ka mid ah Angular waa tools kale oo ka duwan React balse isku ujeedo ayay u jiraan qaybta labaad ee iyana aad muhiimka u ahi waa version control iyo toolka Git marar badan aynu qodobkaan soo xusnay haddii aadan fikir ka haysan version control description-ka muuqaalkan waxaad ka helaysaa laba muuqaal aan hore uga hadalnay version control iyo qaabka loo adeegsan karo okay qaybaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah backend-ga khaasatan inaad taqaano Node.js iyo Express inta haddii aadan qorsheynay inaad noqotid full stack developer inaad ka taqaano basicska labadan framework waa arrin aad muhiim u ah waxyaabaad ku baranaysan waxaa ka mid ah inaad fahamto qaabka ay ugu kala gudbaan labada qaybood ee front-endiga iyo back-endiga sidoo kale inaad ka taqaano database-yada kala duwan iyana waa mid laga maarmaan ah dhalin badani qodobkan way miskarayaan application kasta ama website kasta wuxuu u baahan yahay database si uu xog u kaydiyo waana muhiim inaad taqaano SQL databaseska sida MySQL haddii SQL kugu adkaado dib ma leh waxaad uga wareegi kartaa NoSQL databaseska oo ka duwan SQL-ka waxaana ka mid ah MongoDB balse haddii labada nooc ee database-yada taqaano waxay taasi ku siinaysaa xirfad dheeri ah waxayna kaa caawinaysaa project-yada kala duwan ku dhisi karto mid kastaba database ku habboon waxay sidoo kale application-yada iyo websites ku baahan yihiin API waa isma hore usoo tilmaamnay waxay naga caawinayaa in website-keennu ama application-keennuba uu la xidhiidhi karo service kale tusaale ahaan markaynu website-kan rabno inuu soo darno qayb lacagta lagu bixiyo waxaynu adeegsanaynaa API okay markaad qortid queries badan in errors kugu soo baxaan waa arrin markasta dhacda laakiin waxaa lagu kala duwan yahay qaabka loo xalinayo inaad barato frameworkska lagu testgareeyo queriesku iyana waa xirfad ay muhiim tahay inaad taqaano frameworkskan waxaa ugu caansan Jest iyo Mocha waxaana aad kaaga caawinaya inaad hesho meelaha ay errors ku jiraan xalisana intaanay sababin problems dheeraad ah xalinta errorsku waxay ka mid tahay xirfadaha muhiimka u ah qof kasta oo developer ah haddaba markaad dhisto project waxaad u baahan tahay inaad soo bandhigto deployinku waa step ugu dambeeya ee project kasta maro meelaha aad project-kan soo bandhigi karto ee caalamka kula wadaagi kartana waxaa ugu caansan GitHub page iyo Netlify oo ku fiican soo bandhigista project-yada front-endiga halka platformska sida DigitalOcean iyo Heroku ay ku fiican yihiin oo ay qaban karaan project-yada full stack ah inaad taqaano sida deploy ugu samayn lahayd project-gaaguna sida waa qodob muhiim ku ah markaad tahay developer ugu dambayn dhammaan xirfadahaas aynu soo tilmaamnay waa kuwo aad kugu horumarinaya markaad developer tahay haddii focuska saarto front-endiga ama back-endiga ama aad noqonaysa full stack developer waxaad xasuusnaataa in marka la joogo saaxadda shaqada in la doorbido dadyagoo leh skills badan markasta ood fikir fiican ka haysato processkan web development-ga ee bilow ilaa dhammaad waxaa kordhaya chance-ka kaga duwanaanayso developerska aqaana kaliya ta qayb ka mid ah processkan samayso portfolio oo ku soo bandhigto xirfadahaaga ee project-yada aad samayn karto muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay ay lowla muuqaalkan asxaabtaada mahadsanid